barnaamijka Hon Cable TV gobolada dhexe sida loo horumari karo maamul loogu sameey karo marka hore gobolada dhexe waxaad ka soo bilaabaysaa Mudug waa Galgaduud waa Hiiraan waa Shabeellaha dhexe inkastoo dawladdii ugu dambeysay madaxweyne Shariif ay Shabeellaha sare ku dartay haddana waxa hortadka isweydiiyaan mudan gobolada dhexe ayaa ka soo jeeda gobolada dhexe waxa ka soo jeedo madaxweynayaashii iyo madaxdii iyo caqiladii soo martay Soomaaliya soo mareen Aadan Cabdulla Cusmaan Cabdishii Cali Sharmaarke hoobiyo ku dhashay soo wad mutaqaana Cali Jimcaale Xuseen ninkii Faarax Gulley Xuseen Kulmiye Afrax Cabdullaahi Ciise Maxamuud Maxamed Faarax Ciidiid madaxweynihii hadda ugu dambeeyay Shariif Axmed madaxweynaha xilligan Xasan Maxamuud ra'iisul wasaaraha Saacid wasiirka arrimaha gudaha marka waxa la kaarta gobolada dhexe waxa ku dhashay ama ka yimaado dad caan hogeesiyaal oo dalka runtii hogaamiyay markii xitaa dhigaalka afka Soomaaliga la dhigayay lama dhihin imtixaankii reedi Muqdisho lama dhihin bartaan waa reedi Muqdisho lama dhihin halka kani waa reedi Muqdisho lama dhihin mahaan waa reedi Muqdisho lama dhihin kabtaan waa reedi Muqdisho waxa la yiri halkan waa reedi Muqdisho taas oo macnaheedu ahayd in la qaatay lahjada looga hadlo gobolada dhexe ee Soomaaliya marka xilligan waxay tahay uga tusaaleyntu gobolada dhexe ee Soomaaliya shacabkuna oo dhibaataysan yihiin gobolada dhexe ee Soomaaliya ku nool ma haystaan maamul mid ah ayadoo ay ka soo jeedaan kuwa xilligan hogaaminaya dawladda federaalka Soomaaliya Soomaalida waxa ku amahdaa koobtole ka kobala sheekadu ma sidaasa mise waxba iska bedeli doono madaxweynaha xilligan Xasan Maxamuud Cali Sow iyo Wasaare Saacid iyo wasiirka arrimaha gudaha markay gurigooda hagaajiyaan bay guri cid kale ama guri Soomaaliyeed hagaaji karaan laakiin dadkooda ay macluul dhimanayaan caruurtooda waxbarasho haysan maamul goboleedna u dhisi karin waxa ma qaban karaan waxa lagu ogaan doonaa wax qabadkooda dadnimadooda siday maamul uga hirgeliyaan gobolada dhexe ee Soomaaliya iyadoo ay nala tahay in xilligan la joogo xilligii ugu wanaagsaneed ee maamul goboleed sal balaaran loo dhisi lahaa gobolada dhexe ee Soomaaliya ama santii